halkan waa Boosaaso sawirkan idin muuqdana waa gudaha Boosaaso dadkan aad u jeediina waa Ethiopian waana dad aad u fara badan oo qoomiyadaha kala duwan ee Ethiopia una badan Oromada iyo Xabashida haddaba caawa waxaan doonayaa inaan aad uga hadalno dadka Ethiopianka ee ku soo badanaya gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobol walba oo ay markaasi ku sugan yihiin qulqulkan xooga badan dhibaatooyin haddii Soomaalidu u keeni karto sida ay dawladda iyo maamulada Soomaalidu u arkaan iyo amuuro badan oo waxaas guud ku saabsan ama soo galootigan Ethiopianka ee gudaha Soomaaliya xilligan ayaanu si fiican uga hadli doonaa iyo dadka imaanaya qoomiyadaha u badan yihiin maadaama aynu ognahay Ethiopia in dhowr iyo 80 in ka badan qoomiyadooda ay ku nool yihiin marka waxa ila jooga Maxamed Farmaajo oo ah wariye isagoo qudhiisu gudaha indhaha ku haya waxa ka socda marka hore maxaad ku soo dhaweynaya dabcan shukaadan guray waa dhawaay saaxiib waxaan ognahay maanta oo kale sawir waxa jiray baraha bulshada aad u haystay oo ah magaalada Boosaaso horta sawirkaas dadku say ku filcilinayeen dabcan shukaadan guray sawirkaasi saakay barqadii ayuu baraha bulshada ku faafay waxana runtii Soomaalidu ay uga falcelinaysaa siyaabo kala duwan dabcan inta badan Soomaalidu waxa ay markaasi muujinayaan nacayb ay u qabaan dadkan Ethiopianka qoomiyadiisa kala duwan ee ku soo qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso oo sawirkaasi laga soo qaaday marka dadka badankoodu waxa ay markaasi muujinayaan in ay aaminsan yihiin in Oromadu ay la wareegi doonto magaalooyinka waaweyn ama deegaanada Soomaalida gaar ahaan Puntland waxaana markaasi amada inay walwal ama cabsi ka qabaan dadkan oo si xawli ugu soo qulqulaya inta badan waxaa jira sidoo kale dad iyaguna taa ka aragti duwan oo shukow sawirkaasi uga farceliyay in dabcan ay macquul tahay ama ay dhacdaba in wadamadu dadkoodu ay marmarka qaar sidaasi isugu soo gubashaan laakiin se shukow aysan Soomaalidu aysan hayn inay dib u aragto ay dadka qaar muujinayeen oo waxay lahaayeen annagaba Ethiopia gaar ahaan asagoo kale Soomaalidu saasay u joogta halka dadka qaarna ay caadi la ahayd kuna ay markaasi muujinayeen nacayb ama in markaasi ay ka walwal qabaan in Ethiopianku ay saameyn xun ku yeelato ama ay la wareegaan deegaanada Puntland waayahay Hargeysa joogan Ethiopianku Muqdisho joogan Baydhabo joogan Xudur joogan Garowe ilaa iyo Somaliland oo ognahay inay aad ugu badan yihiin marka magaalada Boosaaso kale kulley qofkii tagay baa dareemi kara laakiin magaaladaas oo kale xaafaday leeyihiin badan oo ay degan yihiin magaalada dhexdeeda shaqada ugu badan ee xogsatada ayaga la wareegay marka dadka Soomaalida maadaama ay soo galayaan horta wax sharci ah ku soo galayaan wadanka ayagu shukow hadalhaynta hadda socoto waxa dhaliyay waxa kamid ah in ay jiraan laba waxyaarood dabcan dadku in markaan si xawli ah ay soo qulqulayaan oo sidii hore lagu yaqaanay ka bedel tan kalena waxay tahay shukow in dadkanu ay sharci aysan ku soo galeen oo dabcan waxa la oran karaa hadii si sharci ama dhibaato deegaanadooda ka jirto waxay in dibdujin loo sameeyo oo si gaar ah loo qaabilo laakiin taasi ma jirto Soomaalida ama deegaanadeena oo awal balada dhacay xaaladaha duruufaha ee kala gedisan ee Soomaalida ka jirta ayaa hadana kumanaan dad ah oo baahi ka muuqato oo aan dibdujin loo sameeynin ku soo qulqulayaan waxa meelaha qaar ku arkaysa ayagoo si kala duwan ama si jamaca u tugsanaya iyagoo darbiyada habeenkii jifa iyagoo daqiiqada ku umulaya iyagoo markaasi aan wax cuna haysan iyagoo aan hoy haysan marka dhibaatooyinkaasi ay iyaguna qabaan sidoo kalena soo kordhiyeen marka sharci hadii ay haysan ku soo gali lahaayeen dawladdu u fududaan lahayd inay dibdujin u sameyso xaalad kasta ay deegaankooda uga soo tageen waayahay aan ka dhaxgalay berigi hore oo kale waxa jiri jirtay in qoomiyadaha dadka imaanaya mar walba gudaha Soomaaliya waxay ahaan jirtay Oromada oo kacdoon waxa jiri jiray TPLF xilligii EPRDF oo kale oo Tigreegu haystay Ethiopia Oromada kale kacdoonna ka socday marka dagaal ka dhici jiray dadka u badan oo gudaha Soomaaliya soo galay ayaga ahaayeen haatan waxa moodaa inay amxaaradii ayaduna ay timid oo dadka sanadahan ama bilihii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya soo galay waxay ahaayeen Xabashi ama Amxaaro sababaha ugu wacanna waxay ahayd in gudaha uu ka socdaan dagaalo oo Amxaarada iyo Abiy Ahmed oo kale dagaala kala dhaxaya marka dad dawladda kala dhalisho waxay tahay xuduud ay ka soo galayaan iyo Boosaaso waxay isku jiraan 1 kilomitir oo kale xuduudii askari ku sii marayaan kontaroolada bay sii marayaan magaalooyinkii oo dhan caasimadii Garowe ka mid tahay sii marayaan in Garowe magaalada Boosaaso markay tagaan lagu baraarugay oo Boosaaso oo waliba cirif ku taalo carabta uga sii gudbaan dood la ka abuuranta maxaa keeni kara maadaama gudihii Puntland hore ilaa xadka Galdogob
iyo Bursaalax ilaa iyo Boosaasan ay socdeen maxay dadku u hadalhayaan intaas oo dhan aan hore loogu dareensanin aad dabcan shukow si aad sheegtay xaaladahaasi kala gedisan ay qowmiyadaha kala duwan markan sababtay inay Puntland iyo waliba deegaanada Soomaalida ay ku soo bataan shukow xaduudaha laguma celin karo oo ma jirto waraaq ama amar si toos ah u soo baxay dawladda Puntland iyo waliba dawladda Soomaaliya oo askarta iyo waliba waxaan la soconaa markaanu anagu ku safrayna xataa Puntland gudaheeda iyo waliba deegaanada Soomaalida in ay aad u adag tahay in aad aqoonsi la'aan ama meesha socod lagu weydiiyo ama meesha ka timaaday marka dadkan in Ethiopian yihiin isla markiiba wala fahmaya mana jiro amar dawladda ka soo baxay oo ay mudanta in lagu celiyo marka waxay sababtaa in hadii la xaqiiqsado inaysan wax ama wax dhibaato aysan sideen markaasi in loo fasaxo inay gudbaan oo sidaas ay sababaya in kontroolada kala duwan ee deegaanada Puntland dhexdooda yaala ay ka gudbaan shukow magaalada Boosaaso waxa kamid tahay magaalooyinka ugu badan ee ay markaan faraha baan ku hayaan sida faraha baan ay ku hayaan waxana dadka qaar ay tunsan yihiin inay soo magaaladaasi oo dabcan meel xeeb ku taalo oo halkaasi ay taariikh ka furan tahay oo qaarkood ay ka gudbiyaan leeyahay shukow dhan kale intaan adag weydiinayo war kale waxay jireen ay sheegayaan in Ethiopianka 3 sano ka hor joogay aysan Soomaaliya hadda joogin oo ay ka gudbeen marka ma la soo karaa laftirkeeda idan oo su'aal kuwan inay gudbaan baa la sugayaa ama dawladdu waxay fahansantahay inay gudbi doonaan horta waa run Boosaaso kale horta waxa moodaa meesha ugu muhiimsan ay targetka oo ah ay beegsanayaan waa Boosaaso marka Boosaaso markay aadayaan laba arrin buu aadaa inay tahay magaalo isdhaan shaqad ka heli kartaa oo xogaa carab magaalo weyn oo dhaqaale oo Soomaali badan oo ilaa koonfurta ka timaada ka shaqeysata marka talabaad waxay tahay inay uga sii gudbaan wadamada Carbeed oo Sacuudiga iyo Yamantaas qalala soo daashadeen iyo wadamada kale Carabta inay uga sii gudbaan way uga sii gudbi jireen kuwa badan oo la soo tarxilay baa jira oo Itoobiya loo tarxilay laakiin waa run dadka mar walba kuwa sii gudbaan laakiin kuwa magaalada ganacsigeedii iyo aaga dekado kala Boosaaso marka tagtiyo xaafadaha qaybtooda kale iyo ganacsi bay ku leeyihiin way degan yihiin waxay ka shaqeeyaan inta badan waxyaabaha baalashka iyo dhaqdhaqista iyo gaari gacanka iyo waxyaabo badan oo xamaalada dad Soomaaliyeed ka shaqeyn jiray marka hore baa moodaa inay ciriiri ku galiyeen oo ay meesha ka saareen galkacyo kale hadda way joogaan baalashlayashooda kale waxa la leeyahay xogaa wax moodaa baalashka qofka Soomaaliga wax ku baalashaa ka baha 15 senti oo dollar ah iyaguna waxay ku baalasaan 2.2 wax ka badan xoogaan afka way barteen mana jirto meel qaxooti ay degan yihiin marka waxa la isweydiinayaa dhaqamadoon maxay Soomaalida dhaqan ahaan ku yeelan karaan maadaama ay aad u fara badan yihiin oo wadooyinka waran yihiin oo dad muslimka inta ku gaalaab isugu jiraan marka maxay saameyn dhaqan ahaan ku yeelan kartaa hadaanan haatan dawladii aysan qorshe u sameyn magaaladii ay dhex degan yihiin oo 10 20 u socdaan shukow horta su'aal muhiim ah dabcan inta badan waxa hadii markaasi aan la qaabilin dhibaato way ka soo baxaysaa dabcan dawladdu way ka gaabisay inay xakamayso soo gelitaankooda sidoo kale waxay ka gaabisay inay qaabisho oo ay qaabilaad u sameeyso dabcan dhibaato dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo waliba ayaga laftirkooda way dhibaataysan shukow dabcan qofka markay dhibaatadu ka badatana bini'aadanka ahi inuu dadka dhibaato ku sameeyo way ka suurtoobaysaa xataa hadii aysan u sameeysan bulsho dhibaato dabcan jidadkay ku dhalayaan hoy ma haystaan cunno fiican ma haystaan sidoo kale ma jirto qaabilaad gaar ah mid caafimaad ha noqoto mid maxaan ku radaa bulsho ha noqoto ma haystaan marka waxa fudud in markaasi hadii ay baahi qabato ay dadkii dhicitaan soo kordhiyaan waxa fudud sidoo kale hadii ay wax dhaqamo u gaar ay leeyihiin inay nafacaad ka raadiyaan maadaama aysan badankooda laga yaabo inay diinta Islaamka aysan haysan oo shukow laga yaabo in baarar iyo wax isku dayaan marka markasto oo dadkan ay soo bataan oo aan la qaabilin wal rumaysan yahay in dhibaato bulsho mid dhaqan iyo mid diinba ay ka imaanayso dawladuna wax muddo inay isku baraarugsaneen oo ay isku dayeen inay xakamayso inay qaabisho waxa jirta ka dhaxgalay maajow hadal kullay xaqiiqan uu noqon karaa shakina uu noqon karaa waxa jirta Ethiopianku kale inay aaminsan yihiin gaar ahaan Oromada kale inay leeyihiin Soomaaliya oo Soomaaliya u yaqaanaan qayb kamid ah Ethiopia
taasi ma la oran karaa ama guuxa noocaas gudaha Soomaaliya aad ugu xooggan yahay waa tan keenaysa in dadka Soomaalidu ay kacdoon ku aadan Itoobiya nacaybka ay ka qabaan in dhulka mustaqbalka ay ka qaataan maadaama dad fara badan ay yihiin arrintaas oo kale hadal hayn noocay suuqa ku leedahay maadaama xilligan xaalkoodu aad loo hadal hayo dabcan shukow horta marba haddii aragti noocaasi ay jirto oo weyna jirtaa 100% waa waxyaalaha ugu badan oo dad iyaga laftirkooda ay dhibaato kula kulmi karaan badanaa waxaa jira dhalinyaro dhaqaaqda waxyaalaha ugu badan oo cuskadaana waxay kamid tahay in dadkan ay aaminsan yihiin dhulkan in iyagu lahaayeen awoodna ay ku qaadan doonaan marka aragtidaasi way jirtaa ayaga dhibaato ku noqon kartaa dabcan sidoo kalena mar kasta oo ay dabcan soo xoogeystaan waa laga yaabaa in ay fikrado ay abuurtaan ama dalka ay ku sii joogayaan ama dalka ay isku dayi doonaan in magaalooyinka qaar ay iyagu u go'aan ama magaalooyin ay abuurtaan hadhowtiin waxaa imaan doonta markaasi bulsho isla degan in markaasi afkaarahooda la isbarbar dhigo oo dabcan wax loo qaybiyo oo dabcan waxa la yiraahdaa ku qabsi ku qadimeyside inay soo baxdo waa suurtagal waxaa jirta in waa soo gabagabaynaynaa waxaa jirta in la leeyahay dadkii la wareegi doonaan iyo kolley aad baa waxa looga qabaa shaki iyo cabsi iyo nacay badan Soomaalidu way muujinaysaa dadka qayb waxay ku doodayaan waa si horta sheegtado qayb waxa jeclaan wadanka in laga raafo way badan yihiin dadka qaba aragtida kuwa kale laakiin waxa jira aragti kale oo qaba dadkan sharci hal la siiyo ceebna maaha in adduunka la isku kala goosho oo dad wadamadoodii ama colaado ama gaajo ama wax kale uga soo cararayana ay wadiin laakiin dawladda waxa laga rabaa inay la timaado qorsho wanaagsan oo xeerarka caalamiga ah ee soo galootiga markaas waafaqsan oo dadkan lagu dajin karo wixii sharci la siin karo shaqaysan kara hadhow gudaha ka shaqaystaan sida Soomaalida dunida daclada joogtaba intay wadankaasi tagaan oo la qaabilo oo la wareysto oo markaas kadib wixii sharci la siinayo wixii loo diido oo ku dhaca wareysiyadana kadib wadankaasi uu siiyo reject ama diidmo marka dawladdu gaabis intee la eg ama door intee la eg bay ku leedahay in dadkani ay sharci la'aan wadankii yimaadaan siday doonaan u dhaqmayaan oo aad ogtahay hal meher hadaa fariisatid halka daqiiqo afrida 20 30 ka badan tuugsanaya xaafadihii magaalooyinka kale ay galayaan hadda gaalka aad looga cabanayo iyo magaalooyinka oo dhanba dawladdu doorkeedu waa ka gaabisay ma la oran karaa dadka inay xal waara u keento shukow 3 ilaa 4 qodob bay dawladdu ka gaabisay dawladdu qolqolkan xoogga la soconaya inay ka hadasho oo ay isku daydo inay xakamayso oo way ka gaabisay inay qaabishana way ka gaabisay sidoo kale bulshada Soomaaliyeed inay markaas dejiso way ka qayb qaadato bulshadii laba kacdoon baa ku jira waxa ku jira kacdoon dadkan idinka dhulkiina doonayaan oo dhibaato lagu dhibaateyn karo dadkaasi baa suurtagal sidoo kale waxa jira kacdoon dadku ku jira oo dabcan inay dadkan dhaqamo xun wataan oo dadka cunaan oo ariga cunaan oo dabcan hadda fikradaha ugu weyn oo dadka laga baqaya kamid tahay marka in dadkii deegaankan deganaa ama dhulkan deganaa dawladdu ay bal dadkan nabadgelyadooda isku daydo inay ku dadaasho ma aysan sameyn inay qaabisho ma aysan sameyn in ay xakameysana ma aysan sameyn marka wixii dhamaa dhanka dawladda ka jifaan bulshaduna markaan aad bay ugu soo baraarugaysaa qulqulka dadkan ay ku soo galayaan habka kala aragti doonaadana sida dadkan ku joogi doonaan dalka waayahay haatan waxaan ognahay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxay in cirka isku shareeray iyaga Itoobiyaankan hadaan xal loo helin khilaafkan oo Itoobiya dabacdo ku adkaysato maxay saameyn ku yeelan kartaa Itoobiyaanka gudaha Soomaaliya ku soo qulqulay saameyn ku yeelan kartaa way ku yeelan kartaa dabcan bulshada Soomaaliyeed waa dad maxaa ku raada cadifadu ku badan tahay oo laga yaabo intuu abi habeen hadlo in subaxeedaba dad badan oo Itoobiyaan dhibaato loo geysto oo ay dadku ka aaminaan dadku ku tashanayo in dalkan u baadaan ama bad u qaadaan in iyaga yihiin in noqoto marka dadkan Itoobiyaanka ee wadankan soo galay iyaguna way dhibaataysan yihiin dhibaatana way soo kordhiyeen oo deegaanka dhaqanka maadaama aan la xakameyn oo aan la qaabilsin deegaanka halkan dhaqanka ka jira rabitaanka dadkan iyo waliba Soomaalinimada maxaan ku raahdaa siday noqotay marka iyagii laftirkooda khatar weyn ugu wajahanayeen Itoobiya kiiskan hadda badda soo cusboonaaday khatar buu ku yahay dadkan birmageedada ee wadanka jooga carruurta iyo haweenka iyo waayeelka isugu jira dhaqamadan lagu tunsan yahay inay wax cunaan dhibaato ku noqon kartaa in dhulka Soomaaliya u socdaan dhibaato ku noqon kartaa marka dhibaatadaasi wax u baahan tahay dawladdu inay ku baraarugto si guud haddii ay noqoto Itoobiyaanka badqabkooda iyo haddii ay noqoto dadka Soomaaliyeed fikradaha ay ka aaminsan yihiin
وهي هذا ما سنت أنت سكسو جبينيا وحها محمد فرماجو وإلى فرنقينيا أرنت إثيوبيان كما ضدك كيمان إثيوبيا سيدا qulqulka xoog leh ku soo galaya gudaha Soomaaliya isla marhaantaana hadal haynta ku aadan dadkaas ay aad ugu badan tahay gudaha Soomaaliya khilaafka labada wadan oo uusan aad u sareeyo oo uusan xiriirkoodu wanaagsanayn kulankeena kan xiga intaan ku kulmayno khiyaarta waxaan leenahay habeen wanaagsan